ilaahay ayaa ka jaaseeyay dhaqan xumadii ay ku soo bandhigi jireen baraha bulshada waa lamaana isqaba oo muuqaalo ay niikinayaan baraha bulshada ku soo bandhigi jiray iyaga oo sidoo kale iska shumin jiray goobo ka hadalkooda uu xasaasi yahay waxa ay la kulmeen arrin ay dad badani ku cimri qaada doonaan kadib markii ay gabadhan qaaday uur iyada oo uur ka lahayd 12 bilood kadibna ay dhaqaatiirtii ka soo xaaqeen ilmo markaasi si kala ah oo dhammaan jirkooda uu isbedelay subxaanallah ilaahay ayaa tani waxa uu dad badani uga dhigayaa cimri qaadasho waxay ahaayeen lamaano noloshooda ku faraxsan balse bulshada Soomaaliyeed ayay u soo bandhigi jireen muuqaalo aad moodid kuwa laga fiican yahay duubistooda cidda aan ka hadlayo waa wiilkan iyo gabadhan lagu magacaabo Cabbaas iyo Faa'isa barta TikTok-gana si weyn looga yaqaano muddo ayay aaladan ka wadeen fasahaad iyo dhaqan xumo bahsan iyagoo mararka qaar duubi jiray muuqaalo ay dadka ka argagaxeen ka hor ka hadalka sheekadan iyo qisada naxdinta leh ee lamaanahan haleeshay waxaan ka codsanayaa daawada inaad muuqaalkan like saarto si uu u gaaro dad fara badan una share garay saaxiibada Facebook kugu weheliya si ay arrintan musiibada ah ay ula socdaan qaybta hoose ee commentigana fariinta aad hawada u marinayso waad inoogu reebi kartaa Faa'isa iyo Cabbaas waa laba qofood oo dhalinyaro ah kuna nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhawaan ayay soo ifbaxeen kadib markii baraha bulshada ay bilaabeen inay ku soo bandhigaan muuqaalo anshaxumo ah oo ay labadooda si wadajir ah u sameyn jireen inta badan dadka ku xiran ayaa fariimaha wada u marin jiray iyaga oo eebba ka bari jiray inuu Ilaahay soo hanuuniyo haddii uusan hanuun u qorneenna inuu Ilaahay ummadda ka qabto si dhalinyarada asaagood ah aysan uga daysan dhaqan xumada baahsan ee ay baraha bulshada ka wadeen subxaanallah labadan qof ee lamaanaha ah ayaa muddo taageerayaashooda u sheegi jiray in Faa'isa ay uur yeelatay gabadhan uurkeeda markii uu soo ifbaxay Cabbaas ayaa bilaabay inuu markaasi isaga oo gabadhan caloosheeda dhunkanaya oo muuqaalo iyo sawiro soo geliyo waxayna dadku intooda badani ay ku waanin jireen in hadiyadan uu eebba siiyay ay qarsadaan balse sidaasi ma aysan sameyn lamaanahan oo waxa ay bilaabeen gabadha oo uur leh iyo wiilka in ay ku horniikiyaan bulshada dhexdeeda ummadda ayaana si wadajir ah markaasi waxa Ilaahay uga baryayeen inuu soo hanuuniyo labadan qofood haddii uusan hanuun u qorneenna inuu Ilaahay ummadda ka kor qaado 12 bilood kadib Faa'isa oo ah xaaska Cabbaas ayaa laga soo xaaqay cunug jirkiisa oo idili uu googo'ay calooshana ku meeyday dhaqaatiirtii gargaarkan caafimaad u fidisay Faa'isa waa ay anfariireen qaarkoodna waa ay carareen kadib markii ay arkeen calaamadaha ka muuqday cunuga yar ee ay ka soo xaaqeen gabadhan waxa ay Cabbaas oo ah xaajiga Faa'isa weydiiyeen waxa ay sameyn jireen isagoona durbaba u sheegay dhaqaatiirtii kuna yiri inagu waxaan soo duubi jirnay muuqaalo romantic ah laakiin markii si loo fiirsho dhaqanka iyo diintaba ka fog subxaanallah bulshada Soomaaliyeed ayaa intooda badan la damqaday musiibadan ku dhacday qoyskan arrintan waa arrin u baahan in lagu cimri qaato waa arrin u baahan in si wadajir ah looga hortago TikTok waxa uu noqday goob markaasi dhalinyarada ay ku soo bandhigaan dhaqamo aad u bahbahsan lamaanahan waxa jira kuwa ka daran oo 24 saac TikTok ku soo bandhigaya muuqaalo markaasi aad si la yaab leh aad uga argagaxayso waxa ayna dhammaantood doonayaan in ay markaasi bulshada inteeda kale laga dhex barto subxaanallah arrintan dhalinyaro si wadajir ah aynu uga hortagno waxaynu qayb ka qaadan karnaa in aynu joojino waxa ka soconaya aalada TikTok iyo baraha bulshada dhammaantood oo dhalinyaradii Soomaaliyeed markaasi lagu soo fasaxay ilaa ay dhamaadka muuqaalka hadii aad ina wehelisay wax kale adiga oo aadan sameeynin qaybta hoose ee commentiga ugu ducay markaasi in lamaanahan uu Ilaahay qalbiga u qaboojiyo maadaama ay la kulmeen arrin u baahan in lagu cumri qaato oo ay bulshada intooda kale markaasi ay ku cumri qaataan si markaasi looga fogaado waxyaabaha faaxishaadka ah ee uu Ilaahay markaasi xaaraantinimeeyay muuqaalkan like saar si uu u gaaro saaxiibo fara badan una share garay saaxiibada kale ee Facebook kugu weheliya waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan magacaygu waa Cabduqaadir Cabdullaahi Siisi